wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda Puntland ayaa magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland ku qabatay kulan looga hadlayay qaab sharciyeedka maalgelineed ee Puntland. Wariyahayaga Cabdimudalib Axmed Saciid ayaa ka waramaya. shirkan oo ka dhacay magaalada Garowe waxaa soo qaban qaabiyay macadka hayaan ee arrimaha sharciyada waxaana looga hadlayay qaab sharciyeedka maalgelineed ee Puntland iyo sidii loo mideyn lahaa dhammaan sharciyada maalgashi ee dalka ilaa xilligii gumaystaha. Maarayaha guud ee hay'adda maalgashiga iyo horumarinta Puntland Cabdiweli Jaamac Ciise ayaa sheegay in shuruucda oo la mideeyo ay dhiirigelin u noqon karto maalgashiga. Sharciga aan sameynay oo already maaragtay draft ah in la gudbiyo marka maalgashi ma noqon karo haddii sharci uuna lahayn marka sharcigu waa waxa ugu muhiimsan si dibadda maalgashiga dibadda laga keeno uu waddanka u soo galo si aan u qancino inay kambaniyasha dibaddu ay waddankeennii maalgashi ku samayntaan marka howl badan baan qabanay ilaa haddaan nahay PIDA waxaa ka mid ah maaragtay sharcigan hadda aan qabanayno baa ka mid ah waxaa ka mid ah wax la dhaho MOU ama Memorandum of Understanding aan la saxiixanay kambaniya raba inay maalgashi ku sameeyaan xagga cusbada iyo xagga korontada iyo waxyaabo kale marka waxaan u baahannahay waxyaabo badan Puntlandna kheyraadkeeda aad buu u badan yahay ha noqoto kalluumaysiga ha noqoto xoolaha ha noqoto maaragtay xataa tourismka iyo saltiga cusbada waa cusbo maaragtay xaafuun iyo meelaha ku taallo waa cusbada dunida ugu fiican baa ku taalla marka meeshiina waxaan rabnaa inaan horumar ka samayno kambaniyaal baan hadda la sheekaysanaynaa oo lacaga badan raba inay ku invest gareeyaan. Sharmaarka Maxamed oo ah agaasimaha macadka hayaan ayaa si qoto dheer uga hadlay nuxurka shirkani iyo waxyaabaha laga faa'iidi karo. Shirka maanta halka ka dhacay wuxuu ku saabsan yahay qaab dhismeedka sharciyeedka Puntland ee ku aadan maalgashiga. Waxaa maalgeliyay USAID barnaamijka GEL waxaa loo qabanayay Puntland Investment and Development Authority hay'adda maalgashiga Puntland waxaa fulinayay macadka hayaan Institute barnaamijku macnihiisu wuxuu ahaa sharciyo badan oo kala duwan ayay Soomaaliya lahayd laga bilaabo waqtigii gumaystaha waqtigii dawladda rayidka waqtigii dawladdii kacaanka iyo burburkiiba iyo dawladdan hadda federaalka dawladda Puntland naftarkeeda sharciyadaas sidii loo qaabeyn lahaa oo looga soo saari lahaa sharci ay ku dhiiranadaan ama ku dhiirtaan maalgashayaasha ajaanibta ah daneynaya inay maalgashtaan Soomaaliya hay'adda maalgashiga Puntland oo kale waxa weeye maalgashadayaal badan baa la soo xiriiray waxa ay weydiinayeen waxay tahay sharcigiinime marka barnaamijka USAID ayaa waxa uu ka taakuleeyay sidii loo habeyn lahaa ama loo qaabeyn lahaa sharciyadaas. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda Puntland Saciid Jaamac Faarax oo shirka furay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo sharciga maalgashiga oo ah mashruuca maalgashiga gaar ahaanna diiradda lagu saarayo in la kobciyo dhaqaalaha iyo wax soo saarka waxaan sidoo kale u mahad celinayaa USAID ama dowladda Mareykanka oo barnaamijkan maalgeliyey runtiina Soomaaliya oo dhan ka wada oo barnaamij Soomaaliya dhan ka socda oo ah in la kobciyo ama la taageero ganacsiga sida gaarka loo leeyahay si loo abuuro shaqo badan iyo meherado badan sida markaa si uu abuurmo
koboc dhaqaale. barnaamijkan oo socday muddo 4 bilood ayaa lagu faaqiday sidii loo soo saari lahaa sharci waafaqsan shuruucda maalgashiga ee caalamka. cabdimudalib axmed saciid, Puntland TV, Garowe.